madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta booqasho ugu tagay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliland Mujaahid Xasan Ciise Jaamac oo xaalad caafimaad loo dhigay cisbitaal gargaar ee magaalada Hargeysa. madaxweynaha oo ay wehelinayeen gudoomiyaha golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Baashe Maxamed Faarax iyo taliyaha ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa waqti kooban la qaatay Mujaahid Xasan Ciise Jaamac oo xaaladiisa caafimaad haatan ay fiican tahay. madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi waxa uu duceeyay mujaahidka waxaana uu ka xoog wareystay xaaladiisa caafimaad isagoo sidoo kalena warbixin la xidhiidha suurtagalnimada waxyaabaha loo baahan yahay in loo qabto ka dhageystay dhakhtarka xaaladiisa caafimaad gacanta ku haya. madaxweynaha Soomaaliland iyo xubnaha kale ee wehelinayay ayaa eebbe uga bariyay inuu caafimaad degdega siiyo mujaahidka oo haatan ku jira xaalad ka sooreyn ah oo aad u wanaagsan. sidoo kale waxa uu madaxweynuhu isla cisbitaalka gargaar uu ku booqday gaashaanle dhexe Cali Maxamedow oo ka tirsan ciidanka qaranka kana mid ahaa mujaahidiintii dalka u soo halgamay kaasoo xaalad caafimaad cisbitaalka ugu jira. Axmed Daahir Xasan, warbaahinta qaranka, magaalada Hargeysa.